nabadda wadayaal salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mar kale iyo muuqaal cusub halkani waa Maariya Xuseen alaabo waxaan kaga hadlaa arrimaha ganacsiga iyo dhiirigelinta ku soo dhawow qaybtii koobaad ee podcast-geena qaybtii koobaad ama kalkii labaad sida title-keediga muuqata caawa waxaan ka wada sheekaysan doonaa company aan ka mid ahay oo la yiraahdo Omlos Global muxuu ka shaqeeyaa halkuu ku yaala sideen uga faa'iideysan kartaa maadaama uu online-kii noqday badweyn aad u tiro badan runtiina dadyo fara badan oo ku xiran kanaalkayga ama barnaamijyadeyda ay iga soo codsadeen inaan uga warramo ganacsigan iyo sida qof walba uga faa'iideysan karo isagoo gurigiisa jooga soo dhawaada tani waa sheekadeeda markale soo dhawaada magacaygu waa Maariya Xuseen waxaan ka mid ahay ganacsatada Soomaaliyeed habka online-ka ku shaqeysta waxaan ka mid ahay company-ga Omlos Global waa company ku yaala wadanka Canada waxa la aasaasay 2005tii wuxuu jiraa in ka badan 16 sano wuxuu ka shaqeeyaa goobooyin kala duwan ama magaalooyin kala duwan Omlos Global waa company ku sahlaya ama ku fududeynaya adoo gurigaaga jooga goobtaada shaqo jooga inaad sameyso dhaqaale ama horumar ganacsi si online hadaba company-gan wuxuu iibiyaa wuxuu iibiyaa alaabooyin kala duwan ama productyo kala duwan qaybta ugu muhiimsan ama ugu horeysa waa health ama caafimaad waxa ku jirta sharoobo la yiraahdo Fountain of Life qaarkii waa maqasheen inta kale aan maqlin waa sharoobo dabiici ah runtiina caafimaadkaaga xal u ah anigu waan isticmaalay wax badan la way tartay dadkii aan ka iibiyay ama customer-kiina wax badan ayay ka sheegteen oo caawimaada qaybaha kale waa skin care ama daryeelka korka oo ay ugu horeeyaan kiriimo dabiici ah runtii wax badan aad u quality sareeya wax badanna ka caawiyay dadyo fara badan oo isticmaalay qaybaha kale waa shaambooyin aad u quality sareeya rag iyo dumarba leh qaybaha kale waa fashion ma jeclaan lahayd inaad ku xaragooto fashion adoo gurigaaga jooga ma jeclaan lahayd haddii jawaabtaadu haa tahay waxa kuu keenay ama kuu haya fashion free ah company-ga Omlos Global waayo qof walba uu jeclaan lahaa dukaan uu leeyahay inuu ka xaragoodo hadaba sidee dhaqaale uga sameyn kartaa company-ga Omlos Global haddii aad rabtid inaad noqoto ganacsade habka online-ka ku ganacsado waliba dhaqaale ka sameeya company-ga Omlos Global hadaba 12 dariiqo ama 12 hab ayaad dhaqaale uga sameyn kartaa company-ga Omlos Global kaasoo kuu suurtagelinaya inuu ganacsigaagu gaaro in ka badan 200 oo wadan sidaynu ognahay qof walba wuxuu raadinayaa inuu sameeyo horumar dhaqaale ama horumar ganacsiyeed isagoo gurigiisa jooga hadaba company-ga Omlos Global wuxuu ku sahlayaa in ka badan 200 oo wadan inuu ganacsigaagu gaaro adoo goobtaada shaqo gurigaaga carruurtaada family-gaaga haysta inaad ganacsan karto dhaqaale dhaxalgalana sameyn karto qaybaha kale uu company-gu iibiyo waxa ka mid ah qaybtii ilkaha ay ku jirto Fairy Microsilver Protection daawada cadayga oo ka quality sareysa ama ka faa'iido badan kuwa in hadda isticmaalo sababtoo ah waxa laga saaray maadada la yiraahdo fluoride taasoo ilkaheena haddii ay ku badato damage fara badan ama dhaawacyo fara badan u geysata hadaba maadadan ay ka samaysan tahay daawada cadayga Microsilver Protection waa maada caawisay ilkaheena caafimaadkeena kor u qaadaysa qaybaha iyo qaybo kale company-ga Omlos Global ayaad kaga faa'iideysan kartaa adoo gurigaaga iyo goobtaada shaqo jooga hadaba barnaamijkan waxa ku soo koobaya haddii aad inuu daneynaysay ama inuu aad niyadda ku haysay inaad sameyso horumar dhaqaale mid ganacsiyeed adoo gurigaaga jooga waxaan kuu haynaa wadadii aad ku xaqiijin lahayd hadafkaaga nagu soo biir aanu ka qabtirno dhammaan su'aalaha aad qabtid waxaan barnaamijkan ku soo koobaya mar kale wuxuu hordhac u ahaa barnaamijyo dhowr ah oo soo wada insha Allah tacaala maalmaha soo socda intani waxay ahayd hordhac ku saabsan company-ga Omlos Global
waa maxay Oblas Global, wuxuu iibiyaa halkuu ku yaala iyo sidee dhaqaale looga sameyn karaa. Wixii su'aalaad aad qabtaan waxaan idin soo dhigayaa ama goobaha lagala soo xiriiri karo.